Mas'uuliyiintan ayaa waxaa horkacayay gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Mudane Axmed Meer Makraan waxaana qayb ka ahaa ku-xigeenada kala ah siyaasadda dib u heshiisiinta iyo gudoomiyaha maamulka degmada Jowhar Ismaan Maxamed Mukhtaar Baarey. Ujeedka kormeerkoodana waxa uu ahaa xal ogaanshaha mashaariic lagu dayactirayo biyo-mareennada waraabiya qaar ka mid ah beeraha magaalada Jowhar iyo buundooyin muhiim u ah dadka beeraleyda ah. Gudoomiyaha maamulka degmada Jowhar Mudane Ismaan Maxamed Mukhtaar Baarey ayaa u mahadceliyay wasaaradda beeraha Hirshabelle iyo madaxda sare ee dowlad goboleedka Hirshabelle. Cid kasta ee ka qayb qaadatay horumarintan kanaalada iyo baratooyada aad arkaysiin runtii waxay qayb ka tahay horumarinta degmadan Jowhar. Waxaan leenahay waa soo dhaweeynaa sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa wasaaradda beeraha Hirshabelle iyo hay'adda FAO. waxaan leeyahay howl nala taaban karo lagu farxi karo ayaa qabateen. waxaan idinka rajaynaynaa mid laba laaban iyo mid saddex laaban sida hadda webiga labadiisa dhinac ee aad u jilicsan in wax laga qabtana idin waa rajaynaynaa. sidoo kale in biisuuro aan helno magaalada biyaha fariistaan idin waa rajaynaynaa hadduu al yiraahdo. Gudoomiye ku-xigeenka dib u heshiisiinta iyo arrimaha federaalka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo taliyaha howlgelinta ciidamada Hirshabelle ayaa iyana kormeerka ka hadlay. Aadan ugu faraxsanahay kormeerka oo horkacayo gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo dadaalada horumarineed ay ku tilaabsanayso caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle degmada Jowhar. waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa hay'adda FAO oo gacan ka geysatay iyo wasaaradda dowlad goboleedka Hirshabelle beeraha idana kaalin mugla ka qaadatay. aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay cid allaala ciddii gacan ka geysanayso fatahaadaha iyo webiga ummadda dhibaataynayo mar walbana waa soo dhaweeynaa. maamulka gobolka iyo degmada dhammaan iyo saraakiisha nala socoto qaybaha kala duwan nabad sugidda iyo booliska. waxaan halkaan u soo aadno kormeer gudoomiyaha gobolka aan u soo raacnay. waxaan kala shaqeynaa dhanka amniga wuxuuna ka shaqeeyo hayaa qaybta horumarinta ee beeraha gobolka Shabeellaha Dhexe. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Mudane Axmed Meer Makraan ayaa dadka beeraleyda ah ee ka faa'iideysanaya mashruucan biyo-mareennada lagu dayactirayo ugu baaqay inay xoojiyaan wax soo saarka beeraha ee magaalada Jowhar. marka dhammaan ummadda Soomaaliyeed ama ummadda gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmada Jowhar hadda kanaaladan iyo faa'iidadan badan maartay maanta wax qabad fiican ka haystaan oo horumarkan fiican oo maanta wax lagu qabsan karo haystaan. waxaan rajaynaynaa inay wax soo saarkooda ay laba jibaaraan wax wanaagsan oo wadanka oo dhan wax u galan inay soo saaraan dib Ilaahay yiraahdo. aad iyo aad u mahadsantiin kormeerkeen intaas ku saabsanay. biyo-mareennadan iyo buundooyinkan Hirshabelle dayactirka ay ku sameynayso ayaa waxaa ka faa'iideysan doona dadka beeraleyda iyadoo la rajaynayo inay qayb weyn ay ka qaataan wax soo saarkii caanka ay ku hayd caasimadda Hirshabelle ee Jowhar. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadan Hirshabelle TV magaalada Jowhar.